Assalaamu calaykum daawadaheena qiimaha lahow waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan waxaana kaga hadlaynaa dhacdo la yaab leh oo ka dhacday magaalada New York ee dalka Mareykanka waa maxay dhacdadani sideyse u dhacday ku soo dhawow muuqaalka oo dhameystiran James Richard Veron waa 59 sano jir ku nool magaalada North Carolina ee dalka Mareykanka James waxaa la soo darsay xanuuno badan oo sababtay inay khatar gasho xaaladiisa caafimaad kadib 17 sano oo shirkadda caanka ah ee Coca-Cola la shaqeynayay Coca-Cola kadib waxa uu sidoo kale muddo gaaban ahaa taraagle iyo karaani xilliyada part-time-ka isagoona nolol maalmeedkiisa ku dabari jiray lacagaha uu shaqada ka soo dhiciyo muddo intaa kadib ayuu noqday shaqo la'aan waxaana uu isticmaalayay ama uu ku noolaa lacaga uu kaydsanayay xilliyadii uu shaqeynayay James oo shaqo ka fadhiisashada xanuuno badan ay u geysay ayay qaar ka mid ah shaqaalihii uu la soo shaqeeyay ay ku tilmaameen in dadaal badan oo daacada si kastaba ha noqotee James noloshiisii caadiga ahayd ayaa gebi ahaanba isbedeshay markii uu awoodi waayay inuu istabibo kadib xanuuno badan oo la soo darsay James ayaa waxa uu xanuun ka dareemay dhabarka iyo sidoo kale lugtiisa bidix taasoo ka dhigtay mid dhutiya waxaana uu sidoo kale ogaaday in xabadka ay buro uga soo baxday markana ay tahay inuu wax sameeyo maadaama uu adkeysan waaye si uu uga baxo noloshan xanuunka leh ayuu waxa uu qaatay go'aan xanuun badan misana maskaxdiisa uu uga fiirsaday inay ka sahlan tahay tan uu haatan ku jiro James ayaa muddo waxa uu ku sugnaa dulqaad xanuun iyo rafaad waxaana markaa kadib uu go'aan ku gaaray inuu dhaco bangiga Gastonia ee ku yaala magaalada New York ee dalka Mareykanka sida uu qorsheeyay ujeedkiisa ayaan ahaa inuu $1 bangiga ka dhaco si loo xukumo dabadeedna uu dabiib bilaash ah ku helo gudaha xabsiga ilaa naf baa u geysay ugu dambeyn waxa uu bilaabay diyaarintii qorshihiisa iyo sida uu sameyn lahaa xilliga ugu habboon markaa kadibna Richard ayaa guda galay qorshihiisii cajiibka ahaa la yaabkana lahaa waxaana uu yimid bangiga Gastonia ee ku yaala magaalada New York ee dalka Mareykanka markii uu soo galay gudaha bangiga ayuu James isagoon meelna eegin waxa uu si toos ah ugu dhaqaaqay dhinaca qasnajiga ugu dhawaa waxaana uu markaa kadib hor istaagay qasnajigii una dhiibay warqad ogeysiis ah oo uu ugu sheegayo in $1 uu siiyo isagoo digniin ku bixinaya kuna cagajugleynaya in uu bistoolad sito oo uu diray qasnajigii oo aad u naxsan ayaa taleefan u diray ciidamada booliska isla markiiba James oo u muuqday mid aysan ka qasnayn oo aanan qabin wax walwal ah oo ku aadan natiijada dhalan karta haddii ciidamada booliska ay u yimaadaan ayaa waa ileen siduu doonayay ee fariistay mid ka mid ah kuraastii bangiga isagoo sugaya booliska si ay u xiraan daqiiqado yar kadib booliska magaalada New York ayaa goobta yimid waana la xiray durbadiiba intaa kadibna waxaa xusid mudan in ka hor inta aan maxkamadda la soo istaajin oo aan la xukmin uu James rajeynayay in lagu xukumo muddo 3 sano ah warbaahinta u sheegay inuu mar kale dhac sameyn doono haddii xukunka uu yaraado dhacdadan oo dhacday sanadkii 2011 ayaa James Richard oo markaa lagu xukumay 1 sano xarig ah xabsiga laga sii daayay sanadka kadib isagoo caafimaad qaba ayuu haatan waxa uu ku nool yahay guri ay dawladda siisay oo ku yaala magaalada uu ku dhashay ee North Carolina ee dalka Mareykanka waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan si aad nooga mid noqoto fadlan ha hilmaamin inaad subscribe dhahdo channelka ulana socoto muuqaaladeena xiga mahadsanid